maartay waa jeclaan lahaa maartay waqti badan baa ka soo wareegay maxamed siyaad barre Allahu naxariistay inuu maqli lahaa doodii ugu horeysay Soomaaliyeed markii la furay xilligiisii oo ahayd inuu doonayo inuu sanadkii 1989 inuu la hadlo mucaaradkii markaa jiray oo saddex jabhadood ahaa oo ahaa SSDF SNM iyo USC barnaamij BBC laga sii daayay oo dadka la weydiinayay maxamed siyaad barre talahaan waxaan ku siiyay madaxweyne horta aqbalin inaad la fadhiisato saddex jabhadood oo saddex qabiil ah oo cadawgii ummadda Soomaaliyeed dhabar ka saaray oo Itoobiya ah laba madaxweyne xilka waxaad ku wareejisaa qof ummadda Soomaaliyeed dhexdeeda magac ku leh oo doorasho gaarsiiya taasi waxay naga badbaadin lahayd burburkii ka dambeeyay kacaanka bay naga badbaadin lahayd dagaalkii 77 iyo wixii ka dambeeyay ay raafka ku riixeen iyo dagaalkii iyo haraatidii dagaalkii qabooba oo na jiray inta markii laga soo gudbo sanadkii 2012 markii dastuurkii kumeel gaarka laga saaray oo dawladda leeyahay kumeel gaarka waa laga saaray mas'uuliyadda fulinta heshiiska dastuurka ku qoran dawladda ay saareed waa commentaryska waa wada dawladda xilka loo doortay bay saareed taasi haday dhameystiri weyday oo ka soo bixi weyday inay nidaamkii federaalka dalka gaarsiiso dawladnimo loo siman yahay gaarsiiso heshiisyada la gaarayna ay fuliso midba mid bay u dhiibtay halkii bay taagan tahay ilaa ay dhacdo waa leadershipka xumaaday baa lagu bay ka socotaaye dawladda la doortaa inay ahdiga ku qoran ku meel gaarka laba tuuri hadda dastuurkii xasan waa ka shubay isaga waa tuuray laakiin waxay ahayd oo lagaga bixi lahaa arinta taagan ah markastoo doorasho soo dhawaato kala guurkan iyo ku meel gaarka sidee looga baxaya waxa ka saari lahayd dawladdii koowaad ee ku meel gaarka laga saaray kuwii ku xigay oo fursad helay xasan isagu wuxuu ku xijiyay qabyo ninkeeda dhameystiro qabyadu waa dalka Soomaaliyeed baan u malayn inuu calooshiisa galo dhammaan baan u malaynayaa qabyo kale ma jirto waayo raad dawladnimo dhammaantii wuxuu ka tirtiray magaalada caasimadda ahayd waxaan u malaynayaa waxay noqon doontaa iyana boog ku taala dadka Soomaaliyeed xagee la isugu imanayo waayo qof kasta oo xildhibaana ama wasiir ah oo ka yimaada meel ka baxsan magaalada Muqdisho wuxuu ku khasban yahay inuu hotel qaali ah deganaado oo aanu Maka al-Mukarrama iyo madaxtooyada agteeda aanu ka fogaanin taasi waxay cadeynaysaa markaa caasimadda laftigeedu inay meesha ka baxday oo aan caasimad ahayn qof kasta oo siyaasi oo taga oo aan Muqdisho ka iman inuu marti ku noqdo oo hadda Muqdishona waxa degan waa intii 19 qabsatay ma aha kuwii ku dhashay maaha marka su'aashu waxay wali ku wareegaysaa muxuu ahaayay sidee baynu ku meel gaarka uga baxaynaa shuruucda iyo heshiisyada uuful ahda in al ahda kana mas'uula waxa kaloo taala إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم كعمها إنه لابن قفكي صوب حبا سياسي أبا وحين كنت هاجرينا قبيل هذا الصوماليين هاي مبادئ الإيج مايو مبادئنا لقصة ترتمي مايو محوها هاي كوا هنت دلك باباي وهنتي دا باباي شروعي كما تعالى إلا محكمة ديو